tobanka Oktoobar waa maalinta caafimaadka dhimirka. qoraalkanina waa wacyigelin ogaan loogu soo beegay maalinta dunida oo dhammi iska aragto ee iska wareysato xaaladaha nafsada iyo maanka wiiqa. qofka habdhaqankiisa, habfakarkiisa iyo dareenadiisba waxay geli karaan qalalaasyo qalqaliya habsamidii ay ku howlgeliyeen. qalalaasahaas baynu nidhaahnaa xanuuno ama xaalado nafsadeed ama dhimir. khalad faham badan ayaa ku hareeraysan xaaladahaas nafsadeed. ugu horeyn waa inaynu wada garanno in cidina aanay ka tallaalayn oo qof kastaa sabool iyo hodan, muumin iyo mulxid, sokeeye iyo shisheeye, rag iyo dumar, yar iyo weyn uu mar la kulmi karo waxa walaahow iyo uurgubiyo ku reeba. labadii qofba mid baa laga yaabaa in ay kol uun haleesho jiro nafsadeed, sida ay xustay daraasad ballaadhan oo 2023 soo baxday. nolosha ayaa wadata dhacdooyinka la mahadiyo iyo kuwa mahadho reeba labadaba. sidii uu Maxamed Mooge ku heesay, dunida badhaadhe ah marna wadata hawl badan. sidaas awgeed cid kasta ayaa u nugul in xaaladdu ku adkaato oo dabadeed qaracan iyo quwad jabba ay kaga tagto oo qaxar iyo qoto ay kala kulanto. meeshii mildhaaba leh ragsow kula masaalmaa. sidaasoo ay tahay xaaladda caafimaadka dhimirka ee dunidu aad bay uga sii daraysaa marba marka ka dambaysa. tusaale ahaan bishii 9aad ee sanadka 2025 ayaa ururka caafimaadka adduunku ku warbixiyey in 8 qofba uu ruux ka mid ahi maanta la halgamayo caafimaad darro. kolka la darsayo xaaladaha nafsadeed, walaaca anxiety iyo qulubka ama depressionka ayaa ka mid ah kuwa ugu faafsan ee dadka saameeya. maqaalkeenan koobani markaa waxa uu isku dayayaa in uu soo ururiyo astaamaha iyo aanaynta qulubka si uu inoogu noqdo barbilow wacyigelineed. waxaana uu iridaha u furayaa in af Soomaali lagaga haqabeelo xogta ku saabsan caafimaadka dhimirka ama nafsada. dabcan qoraalkan iyo mid kale Tony qofka uma noqon karo waxa uu ku maarmo in uu xaaladiisa sii baaro oo uu cid kale takhasuskeeda leh inta uu la fadhiisto uu dhow uga shaqeeyo wax ka qabashadeeda. qoraalku waa kuwiiba fur ee kuma noqonayo damaanad, maxaa yeelay qof kasta waxa uu leeyahay shakhsiyad jaadgooni ah iyo waayo u gaar ah. qaamuuska af Soomaaligu ereyga qulub waxa uu ku qeexayaa isla hadalka iyo walaaca ay arrin qof ku dhaliso. sidoo kale kolka uu magac faleed yahay waxa uu taxayaa tilmaamo aad muhiim u ah: walwal iyo calool xumo dareemid iyo walwal iyo calool xumo dartood la caatoobid. kolka aynu agdhigno qeexidda iyo macnaynta cilmiyeysan ee xaaladaha afka qalaad lagu dhaho depression, waxaynu arki doonaa sababta ay erey bixin ahaan isugu habboon yihiin. guud ahaan jirooyinka maanka iyo nafsada haleela marka la qeexayo waxaa la raacaa dhowr hage oo cilmi ah oo ugu weyn yahay ablaablaynta caalamiga ah ee cudurrada oo uu soo saaro ururka caafimaadka adduunku haatanna maraya daabacaadii 11aad iyo hagaha cudursheega tirakoobka cilladaha dhimirka oo uu soo saaro ururka dhakhaatiirta dhimirka ee Mareykanku haatanna maraya daabacaadii 5aad oo naqtiiman text revised. waxaa lagu naanaysaa soo gaabintiisa ingiriisiga ah DSM. waxaa soo raaca hagaha cudursheega ee dynamika nafeeda oo ay soo saaraan kooxo badan oo ka siman in ay u janjeeraan aragtida lafagurka nafsadeed psychoanalysis ama dynamika nafeeda psychodynamic theory oo qabta in fasiraadda xaaladaha nafsadeed iyo dhimirba laga raadiyo gudaadegidda iyo qodista adduunka hoose ee qofka iyo utumaha laga yaabo in ay ka qarsoon yihiin ee aanu hore ugu baraarugsanayn. waa madhabkii uu asaasay Sigmund Freud. hagahan daabacaadii 3aad ayaa la filayaa bisha December 2025. dhammaan buugagani waa halbeeg laga amba qaado baadhista oo dabcan qeexiddu ka kowtahay. ugu horreyn waa inaynu ogsoonaano in qulubku yahay jiro haleesha dareenka, caatifada iyo jawiga qofka. waxa uu ka mid yahay dallad ballaadhan oo la isku dhaho cilladaha jawiga nafsada mood disorders. sidaasoo ay tahay maadaama jirkeenna iyo nafsadeennu aanay kala qaarnayn ee ay si kasta isu saameeyaan, qalalaasaha dareenka abaaray waxa uu ka soo daahiri karaa habdhaqanka iyo habfikirka qofka uu raadiyo. qulubka laftiisa waxaa loo qaybiyaa dhowr nooc. waxaa ka mid ah gargadoonka dabeecadda iyo camal xumada carruurta, tiiraanyaloodka caadada ka horeeya, qulubka jiitama iyo qulubka daran oo ah kan aynu gaarka ugu muraadi doonno. 3 heer ayaa midkood u iman karaa qulubku: qaab sahlan, qaab dhexdhexaad ah iyo qaab xoogan. waxaana aynu isla eegi doonaa sida lagu garto xusuusnooc carruurta iyo ciroolaba. waa uu haleeli karaa xanuunkani. in qofkaasi qulub daranayo waxaa laga go'aamin karaa kolka ugu yaraan
5 calaamadood oo ka mid ah 9 tilmaamood uu qofku yeesho muddo ugu yaraan 2 toddobaad ah oo xidhiidhsan. astaamahaas waa inay ka mid yihiin jawiga qasan, depressive mood iyo xiisaha oo guura, loss of interest, iyo ugu yaraan 3 kale oo soo raaca. macnuhu waxa weeye labadan aynu goonida ula baxnay waa aasaasi. 1, jawiga oo qasma. malaha waa calaamadda ugu caansan. qofku waxa uu iska soo tabinayaa in uu dareemayo hawasho gudeed, oo uu murugoonayo, oo uu quus taagan yahay. haddii aanu isagu iska warbixinna, ciddii u kuurgasha ee u fiirsata waxay arki kartaa in uu isku buuqsan yahay, hadiyo goor mahsan yahay, mararka qaar uu ooyayo sida la dhaho, oo ay ka jiifto ama ka jajaban tahay. caruurta iyo daayarta waxaa halkan ugu jirta camal xumo iyo dabeecadooda oo noqota mid aan loo dulqaadan karin. 2, hurdada oo ka xumaata. qofku waxa uu doonayaa in uu seexdo ama waa uu isku dayayaa, balse uma imanayso. waxaa jirta xaalad kale oo nafsadeed oo qofku aanu doonaynba wax hurdo ah, isla markaana aanu isku dayayn, sida xaaladda aynan maanta ka hadlayn ee 2F-ka, oo ay tahay in aynan tan ku khaldin. qofka qulub ku hayaa waa uu rabaa hurdo, waa aanu awoodin inuu ilya baal isu keeno. 3, xiisaha oo ka guura. waxaa yaraada waxyaabaha xiise gelinaya ama xeradhaaminaya dareenkiisa ee wax jeclaysiin kara. wax allaala wixii macne u samaynayay ama uu dhadhan ku hayay way isa soo gurayaan. ciilkaambi had iyo goor ah. waa lambar 4, qofku waxa uu dareemayaa in uu khalad galay ama uu raqiis yahay, oo sidii cid dambi lagu hayo ay laabtiisa cuslaanaysaa. waxa uu dareemayaa in aanu waxba ku filayn oo uu waxba yahay. waa uu siifayaa oo isxaaraamayaa. 5, tamar darro joogto ah. qofku wuxuu noqonayaa cagajiid aan waxba qabsan karin. daalka iyo dekaanka ayaa ku badan. waxaa laga yaabaa in aanu qolkiisa ka soo bixin maalmo isku bixisa uu furaashka laasimo. 6, oo mataxumo. ma aha uun inuu amuuntii cuntadu ka guurayso. waxaa dhici karta inuu aad wax u cuno, dabadeed miisaankiisu kordho, ama uu aad uga soomo wixii anfaaci ahba, dabadeed uu aad u dhuubto. cayilaad iyo caataba waa uu yeelan karaa. xasuuso qeexidii ereyga qulub ee qaamuuska oo inoo guntay sifaha caatoobid. waa dhan uun, dhinaca kalena cayilaad baa jiri karta. caruurta iyo da'yartu marka ay qulubsan tahay, halkan waxaa u gala khalkhal ku yimaada miisaankii laga filayay marka loo eego da'dooda. 7, fiirada iyo fekerka oo halaaba. qofka waxaa ku adkaada in uu samir yeesho oo wax cayiman awooddiisa isugu geeyo. dhugmadiisa ayaa hoos u dhacda, fiiradiisa ayaa gaabisa, in uu arrin ka baaraan dego ayaa ku adkaata. 8, kuduudsi jidheed iyo mid macnawi ah. nafsad ahaan iyo jismi ahaanba waxa uu noqdaa fadhiid ay ku adag tahay in uu sida la dhaho far dhaqaajiyo. waa in ay gaadho heer dadka kale ee ka agdhoway ay arki karaan. 9, dhimashada iyo isqurgoynta oo ku soo noqnoqda. had iyo goor waxa uu ka fekeraa geeri ama sidii uu ifka uga tegi lahaa, isagoo aan wax tallaabo ah u qaadayn in uu nafta isdhaafiyo, ama waa uu isku dayaaba inuu isdilo, ama qorshe cad ayaa uu dejistaa sidii uu u dhiman lahaa. waxaa jira khalad fahan badan oo laga haysto isqurgoynta. halkan baa lagaga hadlay wax ka mid ah. qodobka hore, calaamadaha 9 ah in ugu yaraan 5 ka mid ahi ay si joogtaa qofka uga muuqdaan muddo ugu yaraan 2 wiig ah. waxaa dheer dhowr shuruudood oo kale. waa in ciladani ay qofka ku keenayso walaac, karkabo iyo kadeed badan oo ka garbaduuba hawlihiisa maalinlaha ahaa. waa inuu qofku tawstan darteed u howlgabaa. waxaa jira daraasado iyo tijaabooyin cilmiyeysan oo baryahan dambe la sameeyo oo su'aal ka keenay shardigan, oo ka mid ah halbeega hagaha cudursheega iyo tirakoobka. waxaa la ogaaday dadka qaarkood iyaga oo si kasta u qulubsan in ay haddana istiilaan oo howlgalaan, oo noloshooda ay uga soo dhalaalaan sidii qof aan qulub haynin. cilmibaadhisuhu weli waa ay socdaan, balse dar ay horkacaysa Dr. Judith Joseph ayaa shacsanahan u bixisay qulub laga shaqaysan karo, high functioning depression. dhowr bilood ka hor ayay soo saartay buuggeeda high functioning, oo ay masaladan ugu jid bixinayso talooyin aad wax ku ool u ah.
ay ku soo bandhigayso waa arrin aad u muhiim ah. maxaa yeelay marar badan qof aynu moodayno in aan waxba qabin oo laga yaabo in uu inoogu qosliyo shaqo badan yahay ayaa laga yaabaa in waayaha qalafsida ay hoosta ka hiigayaan oo goor ay xeere iyo fandhaal kala dhaceen ay taasi soo ridan doonto haddii aanu goor roon soo wada bixin ama aan laga wardoonin. walaaca iyo diiqada maalinlaha ahi marar badan waa qayb ka mid ah xidhmada iyada oo isku dhan la inoo soo daayo ee jiraalka ama nolosha la dhaho, oo waaba lama huraan. waxay cilad noqonaysaa marka ay habsamay u socodkeenna inaga kala laalaan muddo badan oo xidhiidh ah. waa in la hubsaday in sifooyinkan aanu keenin eel jireed physiological effect oo ka dhashay xaalad caafimaad oo kale ama daawooyin iyo ama maandooriye kale oo qofku qaadanayay. qodobkani waa muhiim maxaa yeelay waxaa dhici karta in haddii qofku bilmatal sakhraamo ama mirqaamo ama uu hafyuun iyo xashiishad isku guro dabadeed uu sida la dhaho herka galo, uu hadhow isku ama lagu arko astaamo weeg qulubka daran. kolkaa waa in la xaqiijiyo in aanu jirin sababo noocaas ah oo loo nisbayn karo astaamahaas. sidoo kale sifooyinka waa in aan loo aanayn karin xaalado iyo xanuuno nafsadeed ama dhimir oo kale. tusaale ahaan 2F waxuu leeyahay calaamadaha qulubka, laakiin kacsanaan mania iyo kacsanaan xigeen hypomania ayaa u dheer. waa sababta loogu bixiyey 2F bipolar. qulubka darani waa inuu keliya jiro oo uu noqdo qulub madiyaysan unipolar depression, taas oo ka dhigan in kacsanaantii ama kacsanaan xigeenkii aanay barbar socon qulubka. mid aynu ogsoonaano qulubka ka dhasha dhacdo weyn oo nololeed, sida qof aad jecleed oo kaa dhintay ama aad si kale u weyday ama xidhiidh caashaq oo kaa burburay ama shaqo iyo mehnad aad ku tahmaysay oo kaa kala daadatay ama wax la halmaala. mar kasta ma aha qulub daran oo ay tahay in laga dayriyo loona aqoonsado jiro nafsadeed. waayo inta badan waa falcelis caadi ah, waana habeendhax oo ma waarto. inkasta oo sida aynu hoos ku arki doono uu mararka qaar keeno danabkac qofka geliya qalaanqal qulub daran ku dambeeya. maxaynu ku kala garan karnaa murugada tacsida ku lamaan ee caadiga ah iyo baaxaadega urugada wata ee qulubka daran wato? waxaynu tixi karnaa dhowr qodob si aynu qof baroordiiqaya ugu khaldin inuu buko. 1. dareenka. qofka geeriyeysani waxa uu ku wajahaa dareen haawasho iyo tabid ah. waxa uu waayay cid uu jeclaa, waana wax la filan karo in booskiisii uu ku bannaanaaday. dhanka kale qulubka darani waxaa lagu gartaa dareen had iyo goor dunsan oo qasan iyo farxad la'aan baahsan. qofku maba uu karo in uu samafisho. 2. tiiraanyada. labadaba waxaa ku jirta marxalad tiiraanyo oo ku suntan, balse qofka tacsiyeysantiisu way jabtaa marka muddo laga joogo. intaa ay haysana waa hirar kala googo'an iyo ladh ku soo kaca hadba marka uu marxuumka xasuusto. laakiin qulubku sidaas ma aha, oo tiiraanyadiisa iyo jawigiisa qasariga waa joogto, kumana xidhna cid ama wax gaar ah. 3. kaarka. labadaba kaar iyo damaq baa la socda. haddana waxaa dhacda in qofka laga dhintay uu mararka qaar muujiyo muusood iyo weji furan, siiba kolka uu xusayo ama lasoo xasuusiyo wanaagyadiisii meydida ee uu soo gocdo maalmo farxadeed oo ay wada qaateen. qulubka darani kama suuro gasho in waxna yaayro u eegay uu soo dhex galo wahabka joogtaysan ee qofka guud wadhan. 4. hamiga. inta badan qofka geeriyeysani hamiga madaxiisa haystaa waxa uu si ama si kale ula xidhiidhaa ciddii ka dhimatay iyo xusuusteeda, balse ruuxa qulubka darani hayo waxaan lagu garan waayin hami iyo fakar taban oo naftiisa la xidhiidha. 5. isayfidda. qofka baroordiiqaya xushmad ayaa uu naftiisa u haya, oo taasi meesha kama wada baxdo. halka qulubka darani uu wato naftiishuuf iyo isnicid xooggan iyo qofka oo dareema in aanu waxba ku filayn. waa ay dhacdaa in kolkolka qaar uu qofku tacasiyeysani naftiisa haaraamo, balse waa haddii uu tabanayo in marxuumku ka dhintay isagoo aan bilmatal soo eegin ama aan waqti fiican la qaadanin ama aan u sheegin inuu jecel yahay, ama haddii uu wax ka tirsanayay
inuu cafiyey ma aha nacayb nafeed oo iskii u taagan ee waa mid meel loo sibraaro leh. lambarka 6 dhimashada qofka geeridu ku timi haddii uu dhimasho ka fekero waa haddii uu xaq yiraahdo oo uu meetida iyo xaaladeeda ku hakado ama mararka qaar inta uu aad u murugoodo in uu niyeysto in uu raaco qofka ka tegay. ra'yigaas oo aan marna ficil isu rogin ha yeeshee qofka qulubka daran haya geerida uu ka fekeraya waa tiisa iyo sidii uu ifka ku dhaafi lahaa ama uu isaga raaxayn lahaa. xaqiiqada ah in badi astaamaha qulubku u egyihiin wax aan la macnayn karin ama aan sabab cad oo meel taalla afka laga gelin karin ayaa marar badan keenta in la beensado ama la faquuqo dadka qulubka daran hayo. maxaad la cabanaysaa ayaa loogu mahmaahi jiray maciil sokeeye ayaa ku haya mise ciddi hoosteed baa laga haya. eedda aynu muranka iyo maninada u naqaanaa haddii ay qof qulub hayo ku socoto inta badan waa laga gardaran yahay. maxaa yeelay calaamadaha jiradani ma aha wax uu ruuxu doortay oo uu ku laabsan yahay ama uu ogaan u samaysanayo mana qabato in looga sii daro. qulubka maxaa keenay inkastoo qof kasta gaarkiisa loo waraysan karo dabadeed jawaab la-eg loo heli karo sidaana uu yahay hagaagu, haddana waxaa jira ifafaalo guud oo lagu soo sooci karo soo ifbaxa iyo isa soo tarka qulubka waxaa ka mid noqon kara hidasidaha mugga biolojiyeed ee qofka siiba habdhiska dareenwadka dhexe iyo isku dhafyada kiimikaad ee maskaxdeenna sababo deegaanku ku keeno iyo kuwa nafsadeed iyo bulsheed oo ah kuwa aynu u ciirsannahay. sababaha nafsadeed iyo bulsheed ee aadka loo xuso waxaa ka mid ah qodobo aynu soo taabannay baroordiiqda iyo burburka xidhiidhada inkasta oo sidii aynu xusnay ay tahay arrin caadi ah in qofku gibil doorsoomo oo ka murugoodo marka qof uu aad u jeclaa ka dhinta ama inta ay isku dhacaan uu cilaaqaadkoodu dumo oo uu si dabiici ah uga soo kaban karo. haddana waxaa la caddeeyey in dhacdooyinka noocaas ay dadka qaar ku kaakicin karaan ololo gudeed oo horiya qulub daran. waxaa kaloo ka mid ah sawirka uu qofku naftiisa ka haysto oo marka horeba hooseeya, qofka oo aan hagaag ugu baraarugsanayn dareenadiisa oo aan iska warqabin, qofka oo dhammaystoon perfectionist ah, qofka oo yaraantiisii si xun loola soo dhaqmay ama baylaha ku soo koray dhacdooyin doogreeb traumatic ah oo uu qofku u soo joogay gaar ahaan caruurnimadiisii iyo qodobo la mid ah. dhanka kale waxaa muhiima inaynu xusuusino dunida aynu ku noolnahay iyo waayaha uu beeray nidaamka sanduulaha la isaga dhigay ee hantigoosadku sida ay uga qayb qaataan baahida qulubka. guud ahaan hanaanka walax caabudka ah ee adduunkeenna faraha baas ku haya waxa uu dhalay in xaaladaha nafsadeed iyo dhimir ee dadku aad u xumaadaan iyada oo shirin caabudku uu abuuray dabayl macno beelnimo ah oo ku habsatay basharka kadib markii nuxurkii noloshaba lagu sidkay jeebka qofka. haddii aynu gaar ugu soo noqonno qulubka iyo dabaqadaha haynta ku dhisan ee aadka u faafaya waxay ku sababeen kala tag baaxad leh oo dabaqadii dhexe iyo danyartii kaga tagtay dayac iyo saboolnimada ama dabka warwarka. daraasadaha qaar baa caddeeyey in dadka laba gaballe ku jira risiq eryadku ay xanuuno uu qulubka iyo walaacu ka mid yihiin uga nugul yihiin asaagooda isuba. qalada iyo baadiyoobidda ku lamaan hantigoosadka ayaa sida oo kale lala xidhiidhiyey qulubka. qofku haddii uu naftiisa iyo ehelkiisa iyo saaxiibadii iyo hiwaayadiisa ka qaloodo oo ka dib jiro si uu u sugo biilka waxaa ku dhalanaysa iswaayid u eg ta laga matalay taxanaha caqiibada leh ee Severance. jalaayadu waa dad si ay u kala ilaaliyaan noloshooda maalinlaha ah ee howlaheeda wadata iyo tooda shaqo ee jirabkeeda leh go'aansanaya in ay xusuustooda kala qalaan si marka ay goobta shaqada joogaan aanay u xusuusan xaaladooda bannaanka. kolka ay suuqa jiraanna aanay isu arag wax la xidhiidha shaqada. waa qof isagu iska dhuumanayo. intaas uun ma ahee hantigoosadku inta uu keeno qulub iyo xaalad daran ayaa uu haddana ka macaashaa. ruuxu waxa uu gelayaa meerto ka mashquulisa duruuftiisa taas oo u dan ah cimriga hantigoosadka. dubsaaradda
iyo dhaqaale xumada iyo sinaan la'aanta oo ah eelka laga dhaxlo caqiidada iyo camalfalka antigoosadka ayaa iyaguna dadka ku keeni kara qulub daran. inkasta oo aynu dhinacyo badan tixraacnay, haddana waxaa kol kasta xusid mudan in ruux kasta yahay gaarkiisa, ayna tahay in iskii loo baadho oo loogu dhabagalo. siyaabaha loola tacaali karo qulubka darani waa ay badan yihiin. waxaa la ogyahay in astaamaha daran ee qofka howlgabinaya lagu dayo daawooyin qulub jabiyaal ah, antidepressants, oo dood badani ka taagan tahay waxtarkooda muddada dheer. hase yeeshee waxaa hubaal ah in baanashada nafeed psychotherapy ay aad wax uga tarto dhimista iyo karaysashada badi astaamaha qulubka. intaa ma aha baanashada nafeed waxa ay qofka ka kaalmayn kartaa in uu fahmo halka caynku ka qalloocday ee nabarku ka hayo, in uu u daadago ama sababaha laga yaabo in ay xasuusta qofkan daqiiqada ka maqan yihiin ee si ama si kale ugu jidbixin kara xaaladihiisa ayaa la soo fagayaa. hortase waa maxay baanasho nafeed? marka qofka uu soo gaadho dhaawac ama cudur jireed, waxaa dhaqanka Soomaali badan ka mid ah in qofka la baanto. baanashada jireed waa in qofkii jabay, jiraday ama dhaawacmay loo sameeyo adeeg uu ku soo kabto, oo waliilkii laga waqaqeeyo. cuntooyin loo kariyey in ay waxtar u leeyihiin baa loo diyaarin jiray. hawo furan inta la geeyo ayaa caano la dhansiin jiray. lugna waa la daaliya, gacanna waa la nasiyaa, waa iyada lagu mahmaaho. hilib salon jabdhan ah oo qofka soo celiya ayaa loogu roonaan jiray. haddii uu jabayna cunto hadhuudh macasar lagu iidaamay u badan yahay ayaa loo rukumi jiray. feedhaha waa la tiiriyaa ayaa la yidhaahdaa. waxaas oo dhami waa in jidhka la soo celiyo wixii xanuunku kala tegay. haddaba ka waran dhaawaca ama cilada soo gaadha maskaxda iyo nafsadda qofka, sidii ugu dhoodaan ina weydiiyey sidee loola tadaawuli karaa toos caqliga gaadha. iyaguna ma u baahan yihiin in la baanto oo la waqaqeeyo? innaga oo dhaqankaa Soomaalida ka dab qaadanayna waxaynu odhan karnaa maadooyinka iska dhan ee kasma nafeed lagu yidhaahdo psychotherapy ama psychological counseling wax kale ma aha waa baanasho nafeed. waayo gedigood waxay la xidhiidhaan sidii jugta nafsadda, dhimirka iyo habdhaqanka iyo ama habfekirka qofka soo gaadhay looga soo kabsiin lahaa, wixii halkaa kaga lumay loogu soo celin lahaa. dabcan ma jirto cunno gaar ah oo qofka loo qori karo si waliilka nafeed uu uga soo roonaado, walow ay mar kasta fiican tahay in ruuxu uu wixii calooshiisa gelaya u tooghayo oo wax nafaqo leh badsado haddii uu heli karo. waxaasay noo furay in qaab kale lagula tacaalo ciladaha habdhaqanka iyo habfekirka qofka haleela, kama waxyeelo yara kuwa jirka ku dhaca. tallaabooyinka lagaga soo kabanaya waxa aynu ku Soomaaliyeyn karnaa baanasho nafeed, waayo aadkooduba waa intii jirka loo samaynayay oo loo soo xawilay nafsadda. qulubka, diiqada, warwarka, walbahaarka, walaaca, meehanowga, murugada, tiiraanyada, karkabada iyo khalkhallada la jaalkaahi waa dhaawacyo soo gaadha sidii qofku u fakarayay ama u dhaqmayay iyo shucuurtiisa. niyaddu waxay u jabtaa si la mid ah ama ka daran sida laftu u jabto, balse maadaama aanad niyadda hadhuudh siin karin, taa beddelkeeda hadal talking therapy baad ku dhayi kartaa. qofka oo laga neefiyo oo loo saamaxo inuu hadlo, burqado ciilka iyo diiqada gudihiisa iyo duunkiisa buuxdhaafiyey iska soo fasaxo ayaa lagu maarayn karaa. mar qofka habfekirkiisa ayaa la beegsan karaa oo caqli celin cognitive therapy ayaa loo samayn karaa. mar kale habdhaqankiisa ayaa la dabiibi karaa oo dhaqan celin behavioral therapy ayaa lagu dayi karaa. kol kale waxaa loo dhaadhici karaa duunkiisa, waxaana laga waraysan karaa dhallaannimadiisii iyo jugaha ku maqan ee laga yaaba inay soo maaxanayaan, oo waxaa lagu maaraynayaa jidka lafagurka nafsadda psychoanalysis ee aynu carabaabnay. waxaasoo dhami waa baanasho nafeed. marka qofka nafsadiisa la baananayo si ka duwan baanashada jireed, waxaa reeban in qofka loo askariyeeyo, la isu waalideeyo oo wax la faro, waxna looga dhaarto. taaladkeeda baanashada nafsadu waa hab daaweyn ah oo xoogeedu ku xidhan yahay qofka dhiban, person century, isagoo ayaa bukaan iyo dhakhtarba wada ah baanisada ama baanataha nafeed psychotherapist. kaalinta uu leeyahay waa keliya inuu qofka u fududeeyo sidii uu naftiisa wax badan uga ogaan lahaa, qiimaheeda u garan lahaa, awoodaheeda u aqoonsan lahaa, ee uu isu fahmi lahaa. marka habkaa isku qoofalani guulaysto, waxaa soo baxaysa natiijo hagaagsan oo qofkii dhibanaa kusoo dabaali karta caadinimadiisii si culaabta nafsadeed ee uu la circiirayaa
ay uga degto. Waxa uu qofku uga baahan yahay inuu cid kale u tago oo uu naftiisa ay wax ka barto. miyaanu isku fillayn? kasma nafeedda waxaa lagu bartaa oo lagu baaraa aragti aad u caqiibo badan oo 1955 soo jeediyeen laba macallin oo la kala oran jiray Joseph Laft iyo Harrington Ingram oo mid kasta labada xaraf ee magaciisa u horeeya ee aynu jijifnay inta la isku xiray loo bixiyay daaqada Johari window. su'aasha aynu farqadan ku bilownay ayay daaqada naga tusaysaa. idana nafteeda ma wada taqaan. qof kasta waxa uu leeyahay 4 qani oo sida jaantuska hoose ka muuqata ay ku kala jiraan hadba xogta qofku iska yaqaan. banyaal arina oo ah waxyaabaha uu qofku iska yaqaan dadka kalena ay ka yaqaanaan. shareeran waa blind oo ah waxyaabaha qofku aanu iska ogeyn ee uu ka indhasaaban yahay balse dadka kale ay ka yaqaanaan. 3 hagoogan fakaad oo ah waxyaabaha uu qofku keligii iska ogyahay laakiin dadka kale ka qarsoon. ama 4 dahsoon unknown oo ah waxyaabaha aanu qofku iska aqoon cid kalena aanay ka garanayn. si kale kolka loo dhigo waxaa jira xog cid kasta u furan oo kugu saabsan. tusaale ahaan magacaaga waa taqaan dadkuna way yaqaanaan waa banyaal. waxa kale oo jira macluumaad kugu saabsan oo adigu aad haysato isla markaana aad tabtii qaraamiga ugu haystid. qofkii arka waan ka qariyaa waa xog hagoogan. haddaba waxaa jira dhinac aanad iska aqoon oo dadka kale ay ka garanayaan oo aad tahay in aad baadhid oo iyaga ka heshid maadaama aad adiguna la macaamilaysid dadka. ma wada ogaan kartid wejiga ay ka arki karaan. kolka la leeyahay ma tihi sida aad isu haysato ee waxa aad tahay sida lagu haysto mar kasta ma aha balse qaybtan bay ku dhaboobaysaa. waa xog kaa shareeran. ugu dambayn waxaa dhici karta in ay jirto qayb naftaada ka mid ah oo ama war kugu saabsan oo aanad adiguna ogeyn cid kalena aanay garanayn. waa xog gabi ahaanba dahsoon. kolkaa qofku wuxuu u baahan yahay inuu saanto qaybaha naftiisa ku saabsan ee uu ka indhasaaban yahay iyo xogta guud ahaanba qarsoon ee lama yaqaanka ah ee uga baahan hawl dheeraad ah iyo in uu tabta macdanta qodo. gunaanad sidii aynu horeba u xusnay qoraalkani ma aha cudur sheeg diagnosis. kagamana maarmaysid hawsha dhabta ah ee iska warhaynta iyo ka jibakeenidda xaaladaada. waa uun wacyigelin nafsadeed psychoeducation oo aynu uga gol leenahay in aynu ku fahanno kuna weelayno in ay wax caadi ah tahay in dareenkeenna habdhaqankeenna iyo fikirkeennuba uu bukoon karo sida qaybaha jirhkeenna. waxa ceebaal ahna aanay taasi lahayn oo ay tahay in aynaan isku ceebsan iskulana yaabin oo aynaan isku takoorin. taa beddelkeedana aynu nafteenna iyo dadka inoo dhowba ku dhiirano sidii aynu adduun hawli kama dhammaato isaga kaashan lahayn waajihidda foolka adag ee nolosha iyo raadsashada dabiibka runta ah. dadka isjecel ee isu uurka furani ma aha in ay kala qarsadaan xaaladahooda nafsadeed iyo loolanada gudahooda ka oogan ee haddii xilli hore la ogaan lahaa oo aan la isku daawadeen waa la iskala qaban lahaa. sida aynu naqaan dadka isu dhowi inta badan way isu sheegaan caafimaadkooda jireed si uu ka kale uga warhayo wixii uga darayana uga ilaaliyo. tusaale ahaan waxaynu nidhaahnaa qofkaasi xiiq buu leeyahay macaan ama dhiikar baahaya iyo wax la mid ah oo ka dhigan fiiro gaar ah u yeesha oo ka ilaaliya isirada ku kicinaya ama ku xumaynaya xaaladiisa. maxaa diidaya inaynu isku ogaano xaaladaheena nafsadeed ee u baahan koolkoolinta iyo daryeelka dheeraadka ah ee ay mudan yihiin si aynaan isaga sii darin oo aynaan qofka diiqadaysan ama qulubsan u moodin inuu isyeelyeelayo ama u saarin culays aanu sinaba daqiiqadaa u qaadi karin. uma baahnin in aynu ballaadhino ogaalkeenna ku aadan jirooyinka iyo xaaladaha nafsadeed ama dhimir si aynaan ula yaabin oo aynaan uga yaabin ee aynu u aqballo islamarkaana uga shaqayno sidii aynu uga gudbi lahayn. cumar dhuule ayaa beri hore ku heesay meel bugtaan ku dhayaya haygala masuugine mar uun waxaad tidhaahdaa maxamed waan ku jecelay. alla badana oo badana inta qof ee eraygeenna wanaagsan ee tudhaalaha iyo ka guridda leh meel bugta ku dhayi lahaa. waa haddii aynan kala masuugin. waa taa fariinta qoraalkani. waa taa dadnimada qumani. mar waxaad tidhaahdaa maxamed waan ku jecel.